September 2012 wixii ka dambeeyay Soomaaliya waxa uu bilowday waa cusub ka u baahnaa taxadar fara badan iyo socod xawli ah si loola jaan qaado dalalka caalamka oo dana badan la wadaago loona hawlgalo sidii Soomaaliya loogu soo celin lahaa saaxadda siyaasadda caalamka. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa aqalka cad ku martigeliyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu safiir u soo magacaabay Soomaaliya halka markii hore ay safaaradda Mareykanka ee Kenya ay u xil saarneyd arrimaha Soomaaliya. taasina waxay kor u qaaday qiimaha dalka waxaana danjireyaal u soo dirsaday in ka badan 40 dawladood iyadoo ay safaarado noo joogaan tiro 40 meeyo ku dhow. xaqiiqdii wax ma qabataa dilaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud haddaan ka hadlo siyaasadda arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda. xaqiiqdii waxaan aaminsanahay siyaasadda arrimaha dibadda in badan inuu ku guuleystay maadaama wadankan waan ogeyn waxa ku yaali jiray Xasan Sheekh Maxamuud saddex safaaradood maanta waxa la sheegay 31 inay ka badan yihiin. waxaan aaminsanahay Xasan Sheekh Maxamuud inuu ku guuleystay siyaasadda arrimaha dibadda. waxa xigay hay'adaha dunida ugu xoog badan dhinaca dhaqaalaha iyo maalgashiga sida sanduuqa lacagta adduunka IMF iyo bangiga adduunka kuwa oo si wada jir ah u amaanay hanaanka iyo dadaalka dawladnimo ee Soomaaliya iyo horumarka dhanka aqoonta iyo bixinta ee bangiga dhexe waxa ayna dunida u sheegeen Soomaaliya inay tahay dal la aamini karo dhanka maaliyadda taasoo ah damaanad caalami ah oo dawladda iyo dadka Soomaaliyeed u soo hoyatay. Politically, this country is coming together like never before. dawladdu waxay ka shaqeysay in la qafiifiyo cunaqabatayntii hubka ee Soomaaliya saarneed tan iyo sanadkii 1992 iyadoo lagu madlan yahay sanadkan in si dhameystiran looga qaado Soomaaliya cunaqabataynta hubka. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaarihii hore ee UK David Cameron ayaa si wada jir ah u shir gudoominayay shirweyne caalami ah oo dhaqaale loogu ururinayay Soomaaliya. dawladda Soomaaliya waxa ay gaartay burburkii ka bacdi waa xilligii ay ugu fiicnayd xiriirka beesha caalamka waxaana moodaa qodobkaas xiriirka caalamiga in laga gaaray tilaabo aad u wanaagsan iyo horumar oo bidbid loola socdo maamul kasta iyo tuulo walba iyo degmo walba waxa ka socda ay yihiin wax ableyda oo ma garanaysaa tilaabo wanaagsan laga gaaray qodobkaas. sidoo kale madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Japan waxay laba goor wada shir gudoomiyeen shir caalami ah oo Soomaaliya lagu taageerayay. September 2013 madaxweynaha iyo madaxda midowga Yurub waxay shir gudoomiyeen shirkii Somali Compact iyo New Deal oo Soomaaliya loogu yaboohay lacag gaaraysa 2 bilyan oo dollar. sidoo kale madaxweynaha iyo madaxweyne Erdogan waxay wada jir u shir gudoomiyeen shirar caalami ah oo lagu qabtay dalka Turkiga. muddo gaaban gudaheed markii uu talada qabtay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa la shaaciyay in Soomaaliya ay ka baxday liiska dalalka fashilmay. Soomaaliya waxay soo ceshatay kaalinteedii heer gobol waxaana markii ugu horeysay Muqdisho lagu qabtay shirkii wasiirada arrimaha dibadda dalalka ku jira urur goboleedka IGAD iyo kii madaxweynayaasha oo isna hadda sii qoyan. tani waxay dunida u muujisay in Soomaaliyada cusub ay wax badan qabsatay lana jaan qaaday dalalkii ay ka hartay. markii ugu horeysay muddo 25 sano ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shir gudoomiyay shir madaxeedka midowga Afrika ee looga hadlayay xaaladda dalka Burundi waxayna dalka iyo dadka Soomaaliyeed u hay sharaf iyo qiimeyn weyn iyo inay soo noqotay dawladnimadoodii. waxaa Muqdisho soo booqday madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele, madaxweynaha Burundi Pierre Nkurunziza, xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon, xogayaha jaamacadda Carabta Nabil Al-Arabi, wasiirada arrimaha dibadda Ingiriiska William Hague iyo Phil Hammond, wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry, wasiirada arrimaha dibadda dalalka Masar, Qatar, Imaaraadka, Bahrain iyo madax kale oo fara badan. sidoo kale wasiirada xiriirka caalamiga ee Denmark, Sweden iyo madaxda urur goboleedka IGAD. Soomaaliya waxay dib ugu soo laabatay safka dalalka dunida waxaana taa abaalkeeda leh madaxweynaha dalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka dhaweeyay balantii ahayd inuu soo celin doono xiriirka caalamiga ah.